Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudanow. Waxaad ku soo dhawaataa casharada Soomaaliga oo aynu maanta ku qaadan doono erayo aynu sharaxna afka Soomaaliga ah. Haddaba horta intaynaan casharka guda gelin, waxaad ku soo dhawaataan in yar oo dhulka naga heli kartaana daawadayaal wax kasta oo ku saabsan barashada afka Soomaaliga ee hooyo hodanka waxaad kala socon kartaan barta aan YouTube-ka ku leenahay ee dhaqankaab, ama bogga aan Facebook-ka ku leenahay ee bogga dhaqankaab la yiraahdo. Sidoo kalena waxaa casharkan idinla socodsiin doona oo soo diyaariyay macallin Casiir Aadan Salaamaan. Casharkeena iska guda galno. Halkan waxaan ku qaadan doonaa casharkeenii koowaad oo erayo aynu ku sharaxi doono. Waxaanu ku sharaxaynaa 5 eray oo ah uu ka mid yahay gube, gayaxan, dabuud, dabaal iyo dulku malable. 5 eray ayaynu maanta kala baranaynaa mid waliba macnaheedu leeyahay iyo waxa uu yahay. 5taniba waxay ka mid yihiin erayada afka Soomaaliga ku jira. Run ahaantiina dad fara badan aanay aqoonin, laakiin insha Allah maanta ay baran doonaan. Gube waxa la yiraahdaa waa xub ay biyo ku jiraan oo marka ay hashu dhalayso ka soo horeeya ilmaha kaasoo u saamaxa Ilaahayna ugu talagalay subxaanahu wa ta'ala inuu ilmaha ka soo jiido hasha ayaa la yiraahdaa gube. Marka waa xub weyn oo biyo ku jiraan, biyo aad u far badan ku jiraan oo neefka hasha ka soo jiida ayaa gube la yiraahdaa. Qodobka labaad oo ah isaguna kaas waanu sharaxnay kan oo ah gayaxan. Gayaxan waxa la yiraahdaa in badan waxaan u maleynayaa dad badan way maqli jireen baan filayaa. Gayaxan hashaasi waa gayaxan tahay haddaad maqasho. Hashaasi waa gayaxan tahay. Waa marka hasha 4 naasba laga maro si aanay nirigtu u jiqin, neefku u jiqin ama nirigtu u jiqin. Markaas ayaa la yiraahdaa gayaxan. Oo la yiraahdo hashaasi way gayaxan tahay. Qodobka 3aad ayaynu isagana qaadan doonaa oo ah dabuud. Dabuud waa nooc ka mid ah marka geelu uu dhalo neef aan dhamays ahayn oo aan lahayn wax dhogora. Neefkaas ayaa la yiraahdaa dabuud. Geelu markuu neef isagaan weli neef noqon uu tuuro lama yiraahdo wuu dhiciyay ee waxa la yiraahdaa way tuurtay. Kudkaga soo qaad ayaa inta badan la yiraahdaa hashaasi way tuurtay oo kuma fiicna geela in la yiraahdo hashi way dhicisay. Waxa la yiraahdaa way tuurtay. Marka ay tuurto iyadoo hashi uu dhiig yahay neefkiina waxa la yiraahdaa way cabaad dheeraysay hashaasi ayaa la oranayaa. Laakiin markuu isagoo neef yara ay dhasho waan dhamays ahayn waxa la yiraahdaa way tuurtay. Dabuudkuna waa nooc ka mid ah isaguna oo uu geelu dhalo waa neef aan dhamays ahayn oo dhogor lahayn. Halka arigana isaguna dulku malable la yiraahdo aynu gaari doono eraygan aynu gaari doono insha Allah ta'ala. Dabaal baa yimid. Dabaal qodobka 4aad oo ah dabaal waa marka labada naas hasha laga maro ayaa la yiraahdaa dabaal. Marka maraqan hasha neefka lagaga maro ka labada naas mara ayaa waxa la yiraahdaa dabaal. Ka 3 mara isaga laftigiisa waxa la yiraahdaa hashaas waa 3 marantay marka 3 naas laga maro. Marka hasha laga maro 2 naasna waxa la yiraahdaa dabaal ayaa la yiraahdaa. Marka xagga sarena waynay ku soo marnay isagana gayaxan marka hasha 4 naas ka maran tahay. Qodobka 5aad ee aynu ku qaadan doonaa